kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada dalka media qodobada maanta aad ku daawad doontaan waxaa kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo xiisada Kenya kala xiriirtay Mareykanka UK iyo EU-da Faysal Cali Waraabe oo shaaciyay been uu cirro u sheegay beesha caalamka dawladda Soomaaliya oo jawaab ka bixisay isbedelka socdaalka ee dawladda Kenya ay sheegtay dawladda Kenya oo ka hadashay wasiirada iyo xildhibaanada laga soo celiyay garoonka diyaarada ee Jomo Kenyatta dawladda Soomaaliya ayaa raadinaysa daraf saddexaad oo soo farageliya khilaafka kala dhaxeeya dawladda Kenya xilli xukuumadda Nairobi ay sar u qaaday cadaadiska ay ku hayso Soomaaliya oo ugu dambeysay mas'uuliyiin fiisaha loo diiday iyo xawaaladaha Soomaalida ee ku yaala magaalada Nairobi ee ciidamada Kenya ay galeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya xiriir la sameysay dalalka Mareykanka UK iyo qaar ka mid ah dalalka kale ee Yurub kana codsatay inay gacan ka geystaan sidii loo qaboojin lahaa xiisada labada dagaalkan ayaa la sheegay inay aad ugu walaacsan yihiin isla markaana aysan doonaynin inay ku lug yeeshaan muranka labada dhinac sabab la xiriira xaaladda aad u adag ayaa rumaysan yahay inaysan jirin qaab la iskugu soo dhaweyn karo labada dhinac sababta ugu weyn ayaa Kenya oo doonayso in kiiska badda ee maxkamadda caalamiga yeela laga laabto iyo Soomaaliya oo ogoleen in arrintaasi wax wada hadal laga galo sababta dawladda Soomaaliya u raadisay dhexdhexaadinta ayaa lagu macneeyay inaysan jirin jawaab macquul oo ay ka bixin karto arrintan Kenya iyadoona ka cabsi qabtay in go'aanka ay qaadato xiisada ay ka sii darto dawladda Kenya iyo dawladda Soomaaliya ayaa waxa u dhaxeeya khilaaf aad u xooggan iyadoona maalmihii ugu dambeeyay uu cirka isku sii shareeray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Engineer Faysal Cali Waraabe oo safar ku jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa ka hadlay socdaalkiisa iyo arrimo kale oo la xiriira Faysal oo socdaalkiisa ay ku helinayaan mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye ayaa waxa uu sheegay in ujeedka socdaalkiisu yahay in warbixin ay u gudbiyaan dalalka Soomaaliland ka taageero arrimaha doorashooyinka Faysal Cali ayaa wax kale oo eedeemo u jeediyay gudoomiyaha xisbiga mucaarad Cabdiraxmaan Cirro oo uu sheegay in beesha caalamka uu kala taliyay inaynan wax lacag ku bixin doorashada Soomaaliland gudoomiye Faysal Cali Waraabe oo ka hadlaya arrimahaas ayaa waxa uu yiri waxaan u nimid inaan wadamada naga taageero doorashooyinka aynu ugu soo warbixino horumarka aan gaarnay iyo waxyaabaha ay yeegsanayna waxaan Nairobi hore u yimid gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan oo war aan helin ay sheegayaan in war xun uu siiyay beesha caalamka oo ka taageera Soomaaliland doorashooyinka marka Cabdiraxmaan waxaan tusaynaa in Soomaaliland xalkeeda uu yeelay magaalada Nairobi balse Soomaaliland dhexdeeda uu yeelay xalka ayuu yiri gudoomiye Faysal Cali Waraabe xukuumadda uu hogaamiyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa ay dareemaysaa cadaadis kaga imaanaya xisbiyada mucaaradka kuwaasi oo marba la kulmaya beesha caalamka isla markaana kaga warbixiyo Somaliland dawladda Kenya ayaa qorsheynaysa inay xirto 10 ka mid ah xawaaladaha Soomaalida ee dalkaasi ka howlgala sida ilo wareedyo lagu kalsoon yahay sheegeen qaar badan oo ka mid ah xawaaladahaasi ayaa shalay baaritaan lagu sameeyay xarumahooda xaafadda Islii ku yaala isla markaana si kooban loo xayiray kadibna loo fasaxay si kastaba go'aanka rasmiga oo la filayo in dawladda Kenya ay soo saarto ayaa lagu shaacin doonaa in la xirayo xawaalada badan iyadoo lagu eedeyn doono qalalaad maaliyadeed oo uu diidayo in dalka Kenya ay ka howlgalaan waxaana la filayaa in laga reebo shirkadda Dahabshiil sida aan xogta ku helnay eedeymaha Kenya ay u adeegsan doonto inay xirto xawaaladaha ayaa waxa ka mid ah inay maalgeliyaan argagixisada isla markaana ay u hoggaansan waayeen sharciga dalka Kenya hogaamiyaasha Soomaalida Kenya ayaa isku dayay inay yareeyaan dhaawaca xooggan ee talaabadan ay gaarsiin karto dhaqaalaha Islii balse macada waxa ay sameyn karaan cadaadiska dawladda Kenya ay saarayso Soomaaliya ayaa ujeedkiisu waxa uu yahay in Soomaaliya ay ka laabato dacwadda badda ayaa waxay ku sheegtay dacwadda badda in gudoomiyaha maxkamadda uu yahay in Soomaaliya isla markaana ay ku qanacsaneen dacwaddaasi dawladda Soomaaliya ayaa iska fogeysay in Kenya ay la socodsiisay isbedelka xooggan ee socdaalka la xiriira gaar ahaan dadka sita baasaboorada diblomaasiga kadib markii Kenya ay soo celisay siyaasiyiin Soomaaliyeed sidaasina waxa sheegay agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Maxamed Aadam Koofi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xafiiskiisa aan lala socodsiin wax xiriir ah oo arrintaasi quseeya go'aankan waa ku kaligood wax nala soo xiriiray ma jiraan waxaana sidaas yiri agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya
waaxda socdaalka garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ayaa laga soo xigtay inay sheegeen inuu jiro isbeddel xagga socdaalka ah gaar ahaan dadka sita baasaboorada diblomaasiga kuwaasi oo laga dalbaday inay fiisa ka soo qaataan safaaradaha Kenya ay ku leedahay Soomaaliya. dhanka kale waxa arintaasi ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya Monica Juma waxayna ka hadashay kiiska wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya loogu diiday in la siiyo dalka Kenya. waxay tiri dhamaanteen fiisa ayaan ku safarnaa mana garan karo sida ay ku dhici karto in aad safarto fiisa la'aan laakiin aniga dhab ahaantii ma ogi sida ay wax u dhaceen balse waa arrin la yaab leh. guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen Dalkaab Media intaan warkaan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.